بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسن صاحبada qiimaha leh waxaad barnaamijka ku daawan doontaan xogihii ugu dambeeyay isjiidka siyaasadeed iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda taagan hub aruursiga Muqdisho ka socda iyo ciidamada faraha badan ee guriga Muuse Suudi Yalaxow la soo dhoobay lagu soo bandhigay iyo qorshaha ciidankaasi saaxiibayaal sidoo kale waxaad barnaamijka ku daawan doontaan xogihii ugu dambeeyay kulanka uu farmaajo ka dalbaday hogaamiyaasha mucaaradka iyo hogaamiyaasha mucaaradka ah oo si rasmi ah u cadeeyay go'aankooda rasmiga ah oo ay ka qaadanayaan kulanka uu ka codsaday farmaajo sidoo kale waxaan xogo rasmi ah in kaga hayaa beesha caalamka iyo farmaajo kulankoodii muxuu ku soo dhamaaday maxaa la isku afgartay maxaa ka jira in lagu kala kacay maxaa looga dooday kulankaasi beesha caalamka fariinta ay u soo qoreen farmaajo markii ay kala tageen maxay tahay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku daawan doontaan saaxiibayaal marka hore halkani waa Alfa Media Group ee aad channel ku cusub tahay subscribe saaro gambaleelka ha hilmaamin si aad uga mid noqoto saaxiibada halkani ku xiran fadlan barnaamijka like garay si aad uga qayb qaadato barnaamijka ku soo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan saaxiibayaal inta aanan qodobada kale u guda gelin aynu horta marka hore isla fiirino farmaajo kulanka uu ka codsaday midowga musharaxiinta iyo xogaha la xiriira farmaajo ayaa guud laawe iyo qoorqoor waxa uu u soo dhiibay codsi ku aadan in ay musharaxiintu la kulmaan yacni midowga musharaxiintu in ay la kulmaan farmaajo si ay uga wada hadlaan xaaladda waddanka xogo hoose ayaa waxa ay sheegayaan in farmaajo uu culayska bulshada uga imaanaya ciidamada faraha badan ee magaalada Muqdisho ku soo qulqulaya ee dhufaysyada ka samaysanaya culayska uga imaanaya ciidankii oo gadood ka sameynaya dawladda federaalka Soomaaliya ciidankii oo ku kala qaybsamay xaaladda siyaasadeed oo taagan iyo go'aankii guud laawe iyo qorqor uu rabo in uu daaqada ka saaro kaasoo ku aadanaa in ay ka soo horjeesan doonaan muddo kororsiga uu farmaajo sameeyay isla markaasina ay si rasmi ah u cadeyn doonaan in ay ka soo horjeedaan muddo kororsigaas uu farmaajo samaystay sidoo kale kulankii weynaa ee beelaha hawiye in meesha laga saaro ayuu doonayaa farmaajo sida ay xogaha hoose sheegayaan beelaha hawiye ayaa waxa ay ku ballansanaayeen shirweyne ay uga tashanayaan xaaladda waddanka ka taagan go'aamo rasmi ahna ay ka soo saari doonaan sidoo kale cali guudlaawe iyo qorqorna ay ka cadeyn doonaan halkaasi mowqifkooda rasmiga ah ee ku aadan go'aanka uu farmaajo qaatay ee ah inuu muddada kororsaday farmaajo isaga oo waxaasoo dhan ka hor imaanaya doonaya inuu daaqada ka tuuro sidoo kale xiisadda siyaasadeed ee taagan ciidamada Muqdisho difaacyada ka samaystay xaaladda taagan guuxa shacabka waxaasoo dhan ayuu rabaa inuu biyo ku shubo maadaama uu ku hungoobay ficiladii uu rabay in uu sameeyo isla markaasina ficiladii iyo sidii uu u rabay ay u noqon waayeen sidoo kale waxyaabo uusan filan karin ay meeshii ka soo baxeen in bulshadii kacday in ciidamadii ay gadood sameeyeen in ciidamadii ku kala qaybsameen in dadkii ugu dhowdhowaa uu ku waayay xaaladda taagan ay waxa uu doonayaa inuu fasax ka qaato arrintani taagan ayaa la leeyahay waa sida ay xogaha hoose sheegayaan haddaba aynu isla fiirino kaligii tali sidiisaba waa isku mid haddii uu Ciraaq joogo iyo haddii uu Syria joogo iyo haddii uu Liibiya joogo iyo haddii uu Yaman joogo iyo haddii uu Itoobiya joogaba iyo haddii uu Uganda joogo waa isku fikri aynu fiirino abwaan hadraawi oo ka hadlaya kaligii taliska iyo bulshada markii ay kacaan sida uu u damiyo garashadu haday ruux la tahay suu garanayo garaadkiisu suu qabo hadii loola garan waayo gardarru u qaataa ninkii yiri garaadkiisa xaajadu markay gobooda iyo gowda culus joogto kaligii ninka shaantay uu gola ka fuula adiga waxa lagu yaqaanaa ninka kalitaliska ah maalinta arrintu halka ugu culus ugu halisaysan marayso ee ay ahayd inta la isu yimaado in la faaqido oo la faguro oo lagu guulo oo lagu dhaxo oo lagu xiqo oo lagu daalo ayaa saa loo soo fadhiisanay marka soo waxba hadlina soo arrinta tan iyo ka hadalkeedii xalkeeda ma aha sida wax waliba ku talagal bay ku qabsoomaane waxa weeyaan kalitaliska waxa lagu yaqaanaa had iyo goor wuxuu soo jeediyaa talooyin aan laga fakirin oo la shiilin oo la tijaabin oo had iyo goor wixii soo wuxuu yiraahdaa si fududo maaragtay hadhowna isbixin weyda lugta xaajadu markay gobooda iyo gowda culus joogto kaligii nin gaashaantay uu gola ka fuula si fududu buu isaga yiraahdaa talada hadalka uu yiraahdaa gadaashiisa baa durbaan laga garaacay labadiisa geesood ma jiro ruux ku gelaya kalitaliska
ma ogolan yiraahdo waynu gudboonahay aan iska barbartaago waa inuu nin waliba xagga dambe uu durbaanada la tumayo iyo waa inuu xagga dambe uu ka maqlayaa laakiin de ma ogola dhinacan iyo dhinacan cid barbartimaata shirkani uu farmaajo hadda ku baaqay ee uu yiri midowga musharaxiinta in ay ila kulmaan ayaan rabaa isaga oo 2 sano ku darsaday cadeeyana in uusan ka laaban doonin muxuu ka dhigan yahay yacni marka ay kulmaan haddii ayba dhacdaba haddii ay kulmaan qorshuhu muxuu yahay muxuu samayn rabaa go'aamadiisu maxay yihiin keligii tali sidiisa waa isku ficile abwaan hadraawi on ayaa noo sharaxaya waxa uu samayn lahaa marka ay kulmaan kadib yiraahdo haddaba intiinu iska hurda taga oo intii laynoo wada diray anaa ku filane waa mahadsantihiin aniga waniga warsuga nin hadduu tashiga guuta faran keli ganaanaysto garayucuunkiiyo shinnida guruuciya dhaadheerta gilyaalayaashiyo fulaha laguma guuraanka gumarta iyo maajeenta iyo geedxunkiiyo tuugga gungunaafka iyo maarta iyo gocorka aan quudhin kuninoo guraangura hadduu goob isugu keeno guufkiiyo haddii hooda iyo giniga loo qaybsho dadka kale intii gudan haddii gararka loo jiido gubaabadeedii haddii loogu godadleeyo hadallada galoofta ah haddii loogu malagaaxsho gurya noqoshadeedii haddii lagu gawaan raacsho gabaldaye sidiisii hadday laba gardaymooto shimbiraha gabraatiya hadday galow wax weydiiso kol hadday galaydh soo kallahay laabta uga guuxdo garbaraar cadhaysanay hadduu gooyo taladeeda guulkeedu dheeraa sidii geeyadii bixin markii ay kulmaan xaajadiina meel la isla dhigo ee la yiraahdo warniyahow sidaan ayay wax ku habboon yihiin waxa uu leeyahay hawshaas anaa kala tuuraya aniga ayaa ku filan waxa weeyaan go'aan ka gaaraya hayi hadee hore u baxa hadhow ayuuna ku ballan furaya oo go'aan kala qaadanaya marka yacni waxa taagan ayaa intaas ah musharaxiintu marka midowga musharaxiintu waa ay fahansan yihiin waxa uu damacsan yahay iyo ujeedka uu ka leeyahay iyo dibandaabyada uu sameynayo iyo waxa haddana dhibaatada kale ay ka dhalan karta in inta la kulmo haddana la isku ballan furo sidaas darteed waxaa la leeyahay xogaha hoose ay sheegayaan in musharaxiintu ay ka cudurdaaran rabaan oo ay dhihi rabaan waa inaad horta caddaysaa in aad ka tanaasushay kursigan waa inaad caddaysaa 2 sano sida sharci darrada ugu darsatay waa inaad meel cad saartaa oo aad tiraahdaa waan isaga imaanaynaa oo yacni waa ka tanaasulay markaas kadib ayaa annaga oo dhan oo maamul goboleedyada cid walba ay u dhan tahay ayaa kulmeyna waa qorshaha rasmiga ah ay musharaxiinta u degan go'aanka rasmiga ah oo ay ka leeyihiin inay guudlaawe iyo qoorqoor u dhiibaan ay rabaan waa sida ay xogaha hoose sheegayaan ilo ku dhow musharaxiintuna ay noo xaqiijiyaan qodobkaas haddii aan halkaas uga gudubno markaana aynu fiirino kulankii dhex maray afisyooni ku dhex maray farmaajo iyo beesha caalamka waa C6+ xogihii kulankaasi waxa ay sheegayaan in beesha caalamku oo go'aankooda yahay inay farmaajo tilaabadii ay ka qaadaan cunaqabataynta ahayd inay xayiraadii ay ku soo rogi doonaan inay u aqoonsan doonaan dagaal oogi laakiin farmaajo ayaa waxaa la leeyahay kama uusan hoos qaadin hadalkaasi waxa uu ku yiri baarlamaanka ayaa go'aan rasmi ah ka gaaray arrintaasi wax laga laaban karana ma ahan wax laga wada hadli karana ma ahan sidoo kale inaan la heshiiyo waa ogolahay ayuu yiri oo yacni inaan wada hadal la sameeyo oo aan arrimaha kale isla meel dhigno laakiin 2 sano in la igala hadlana ma rabo inaan ka wada hadalnana ma rabo laakiin arrimaha kale oo siyaasadeed waa ka heshii doonaa sida ay doorashooyinka qof iyo cod iyo ku qabsoomi doonaan iyo ka shaqayntooda iyo habka looga shaqeeyahay waxaas oo dhan ayaan ku heshii doonaa marka beesha caalamku waxaa la leeyahay shirka waa uga kaceen farmaajo fariimo ayay u soo direen laakiin fariimihii ay u soo direen farmaajo ilaa ay hadda cid si rasmi ah u xaqiijin karta ma jirto waxa ay ahaayeen arrinta yaab kale ayaa waxa ay tahay marka farmaajo soo 2 sano ma ahayn waxa lagu haystay maxaa kaloo lagu haystay 2 sano oo kordhistay ayaa lagu haystay intii uusan muddo kordhinta samaysan ka hor waxaa lagu haystay ee uu ka fuqi diiday ee uu ku dhagay go'aamo aan muhiim ahayn yacni inuu gobolka Gedo iyo arrimaha Somaliland iyo guddigii doorashooyinka iyo arrimahaas oo dhan ayuu ka fuqi diiday sida ay kulan walbana asaga ayaa ka kacayay asaga ayaa fashilinayay kulan walba haddii la ballamo ee lagu ballamo in biriyo kale la isku soo laabtana asaga ayaa iska tegayay oo go'aamo kala qaadanayay oo saxaafadda la hadlayay isla markaasina dusha ka saarayay 2 dawlad goboleed waa Jubaland iyo Puntland ee lahaay 2daas ayaa diiday yacni waa dhaqamada lagu yaqaano keligii taliska inuu mas'uuliyadda cid kale u saarayo
wixii uu sameeyey qaladkii uu sameeyey ayuu cid kale u saarinayaa. hadda wuxuu ismoogeysiinaya oo fasax ka qaadanayaaba in muqdisho laysku hor fadhiyo, in dagaal dhici rabo, inuu ma garanaysaay waddanku xaalad halis ah ku sugan yahay, in 2 sano ee uu kordhistay in lagu dagaalamo asagana lagu dilo ama uu wax ku dilo inay qarka u saaran tahay ayuu fasax ka qaatooba ismoogeysiiyey markii uu beesha caalamka hortegay. waa arrin kale oo yaab leh. dhanka kale saaxiibayaal, haddaynu fiirinana guriga Muuse Suudi Yalaxow ayaa waxaa lagu soo bandhigay ciidan fara badan. saraakiil ayaa shir kula jirta ayaa la leeyahay Muuse Suudi, kuwaasoo ka soo jeeda beelaha